habeenkii wuxuu ii dhammaaday anigoo fadhiya sariirta dusheeda weliba yaab dhabanada la haysta ilaa maalintaas isbeddel weyn oo ila soo darsay ayay iga dareemayeen qoysku anigu nin ogaalka dhabta ah ee qisadan u baahan ayaan ahay goor barqadii ah ayaan iska soo fadhiistay geed hadhqabow oo ku beegan bannaanka guriga oo ay waddo hormarto walaashay Sahra ayaa iiga soo horreysay hadhka oo aan garabkeeda fadhiistay iyadu waxa ay ku mashquulsanayd akhrinta buug sheeko ah laakiin aniga waxaan indhaha iskala raacayay gaadiidka iyo dadka maraya waddada daqiiqado badan kadib oo aan ku fikirayo inaan isaga noqdo guriga ayaa si lama filaan ah waxa ay igu soo muuqday gabadh yar oo muuqaalka marada iyo da'da kala siman ama u eg gabadhii uu xalay odaygu sitay markiiba waan sare istaagay oo si wacan ayaan indhaha uga buuxsaday hubaal waa iyadoo aan biyo ismarin inta ay yara istaagtay ayaa indhaha si dhiifoon iigu soo qabatay waan awoodi waayay inaan dhankeeda aado waxaan isaga laabtay fadhiga laakiin markiiba luuq u dhaweeyay ku carartay anigana waan ka daba booday oo hadba luuq iyo waddo ayaan iska daba jiidhnay walaashay Sahra oo xilligaas ila fadhiday waxay qayb ka tahay orodka iyada iyo qaar ka mid ah qoyska oo ay u qaylo dhaamisay ayaa isoo daba ordaya waxay la tahay inaan dagaal gali rabo oo sida lama filaanka ah ee aan u soo cararay bay la soo yaaceen waxaan isdaba orodnaba waxay gabadhii gashay guri muuqaalkiisa guud dhismooyinkii hore ah oo dayac tiran oo ganjeelkiisu buluug yahay darbigiisu cad yahay haddana guryo la mid ah ay dhinacyadiisa ku yaalaan isma lahaan diifta gabadha iyo quruxda guriga ay gashay waan yara hakaday laakiin daqiiqada gudahood waxaan qaatay go'aan ah inaan garaaco guriga oo aan gudaha u galo sidii baan yeelay markaan dhowr jeer garaacay iridii guriga ayaa qof aan cod ahaan mooday inuu da ahaa waayeel yahay igala soo hadlay gudaha guriga wuxuu ii yidhi waa kuma waxaan idhi waa aniga qofkii cabbaar ayuu iga aamusnaa waxaan mooday inuusan u soo socon inuu iridda iga furo sidaa awgeed baan gadaal uga soo degay guriga anigoo isleh bal iska laabo oo meelahan ku yara sug laakiin markiiba waxaa la furay iridii guriga waxaana u soo booday dhankii guriga waxaa iga furay guriga ruux aan marna run ahaantii shaki iga galin araggiisa waa odaygii saqda dhexe yimid qolkayga oo haddaba iga furay gurigii ay iga soo dhuumatay gabadhii yarayd ee uu habeenkaas siday la yaab iyo ama kaag oo midba kan kale ka daran sow ma aha waxaa kaloo cajiib ahaa gurigu waa mid aan dayr lahayn ama barxad kor ka daboolan sidaa oo ay tahay waa goor barqa ah markuu odaygu iga furay iriddana waxaan arkay sida wax gudcur ama mugdi ah oo ka dambeeya odayga ama ku beegnaa gadaashiisa ee gudaha guriga ah waxaan damcay inaan u soo dhawaado laakiin markiiba odaygu wuxuu iga hor keenay iriddii oo uu soo xirtay si xoog ah oo isdaba joog ah ayaan u garaacay cid dambe gudaha igalama soo hadlin waxaan damaaciyey inaan xagga sare u laaco ganjeelka oo aan ka boodo dushiisa sidaana aan gudaha ugu dhaco waana tijaabiyey isku daygaas laakiin waxaa i soo gaaray oo meel dhow iga wada daawanaya qoyskaygii oo aad u yaaban anna war uma hayo xilligaas waxaan hal mar ka war helay dad isku kayduubay oo aad u xooggan waxaanan xilligaas sii fuulayay ganjeelka dushiisa dadku waa ehelkaygii haddana anigoo ku leh waxbaan hubsanayaa ayay ii soo xambaareen dhinaca gurigeennii waxaan arkayay gabdhaha oo oynaya iyo wiilashoo ku haya goormo ayaa isbeddelkan lagu arkay waan yaabay waxaan dhahaa war maxaa idinka si ah war anaaba socon karee bal dhulka uuni dhiga dhammaan hadalladayda cid u dhegdhigaysaa ma jirto tani waa hawl adduun isla markii xaafadda la igeeyey waxaa soo buuxiyey gurigeennii dadkii xaafadda oo mid waliba aniga ii qiiroonaya waxaan anigu isleehay xilligaas war maxaa kaasi ah oo ay dadku kugu arkeen wax yar kadib ayaa la guda galay in ehelkii daba yaacayay ay waalidka uga warramaan wixii ay arkeen intii ay daba ordayeen waxay sheegeen in laba gaadhi ay igu soo oryadeen ama igu soo raacdeeyeen markii ay cag igu soo qaban waayeen haddana aan jaray masaafo aad u dheer laakiin anigu daal xitaa ma dareemin tilmaan ahaanna meesha aan tagay waxay ila tahay inay gurigeenna u jirto ilaa wax ka yar 10 boos sidaa awgeed ayaan ku qoslay warbixintooda ana ruux waalan la isii mooday waxaa kaloo sheekadii ku dareen inaan hor istaagay guri qadiimi ah oo deganaanshihiisu ugu dambeeyay wixii ka horreeyay 1991 oo dhir qodaxyo badan uun ku dhex taalo haatan waxaase iiga siiyaa badnaa markii ay dhaheen waxaan soo qabanay isagoo oynaya oo bacaadka gurigaas rafanaya weliba soo xambaarnay ogow waa ninkaygii ganjeelka guriga weyn ee quruxda badnaa dushiisa ka boodayay waxaan idhi iyadoo lay hayo ma ganjeel mise bacaad mid ka mid ah baa yidhi ha ganjeel xitaa fiilo ama bir yar oo ka hartay gurigaas kuma oolin waa yaab ma aniga ayaa saxan mise iyaga ayaa saxan la soco xaqiiqada sheekadan iyo qaybta saddexaad bari xilligan oo kale insha Allah